magaalada Hargeysa anigoo jooga mise jaamaca Hargeysa soo dhaxmaray kii Soomaaliyeed dabeetana hadda Hargeysa iyo gobollo badan oo Soomaalida dhulkeeda kamid ah waxa ku soo batay dad fara badan oo ajaanib dalkan Itoobiya ka yimid sababaha ay doonaan ha u yimaadaan dadka hormada la yiraahdo hadda ugu badan baa leeyahay dabeetana anigoo jaamaca Hargeysa dhaxmaray ayaa waxa dhacday gabadh Oromaaba ilmo yar bay daadahaynayso 7 sano 8 sano meelaha ay jiray mid kale oo ilaa 7 bilood jirana way xambaarsanayd hooyaheed marka dabeetana mid yar oo ku yimid Soomaalida baalashayaasha mise jaamaca dhexdiisa fadhiya ayaa ki yaraayay ay sidee maxaan ku ay daadahayn soo rabada habsaas oo kale uga dhirbaaxay dabeetana uu yaro oo Soomaaliga yar jijibsan soo dabeetana waxay ku jiraan maxaad inay iga dilaysaa dabeetana wuxuu ku nalaad ka diiran waan ku dilay isaga laftiisu ka yar Soomaaliga waa 7 sano meelaha jir arwaan daba socda marka dadintii ku soo jeesatay ku tiri ka dhabarka aan ku sido ma dhirbaaxi doontid ka dhabarka aan ku sido ma dhirbaaxi doontid inuu yar oo tiri ki yaraay 7 jirka Soomaaliga habay ku jir ereyga markaan iga saameyn buu igu yeeshay ereyga saameyn ayuu igu yeeshay waayo ilmaha yar maanta 7 bilood jira hadduu Hargeysa 20 jir ku gaaro sharci wax ka qabanaya ma jiraan sharci aad iskaga qabato malihid waa muwaadin Hargeysa ku dhashay sharcigu qaadanaya bari way ka tira badan yihiin waday doonaan 20 ka sano soo guuriyay Hargeysa degayaan inaga dhalinteena way sii socotaa koodi way soo socdaan wax ka qabanaya ma jiraan qaabkiinu maanta u noolahayna wax qorsho aynu ka leenahay dadka soo socda ma jiraan haddaan kaysoo runta ku sheegay dhowr habeen baan seexan wahay ereygii ahaa ka dhabarkan ku sida ma dhirbaaxdo dhowr habeen baan ka seexan wahay kadibna anigoo in badan maxaan ku dhahay ereygii rogrogo wali gabayga anigu soo dhaxay waxaan tiri gabay yiraahdo dhayga baa la yiraahdaa gabay yaab weeyaan wuxuu ka warramayaa bulshadeena iyaduna si tahriibka iyo bulshadeena aan dhaadanaanta badan ku jirin iyo bulshada ku fikiraysa inuu 20 sano inankeedu Hargeysa haduu doonada isagu ka taliyo kii yaray reer Hargeysa inankeyga Hargeysa gudaheeda kuma dhirbaaxdo oo de run ah ima kaabay ifafaalaheeda muuqdo maxaa 20 sano ka sheegaysa marka gabayga dhayga baa la yiraahdaa ka helay hodanay dhawaa qaaday tiri dhuuxay hadalkii marna dheello kuma gabiyo yaxaaja dhalanteeda dhudii qaasiniya baan haya macalin doodaana waxaan la dhuubnahay waxaan la dhalan guuray dhibaatooyin xanuun baan qabaa nacasku dhaadayne dheef ma hawoodo iyana dhuuni raadsaday dhadhamiya xaraga waan ka tagay dheeman iyo luule dhaqashiyaha weermo hollado gaafaf lay dhigee 100 dhaawac baa igu dhiciyo waliba dheeraade waxaan la dhaygay nin ragi dhowran kari waaye dhabanka iyo madaxan haya kuma dharaaroode dhulkiisii nin cadow dheelmiyay oo dheeliyaan hayo oo waliba kii dhicin lahaa dollar dhaafsaday dib kale ka daran baa jirta oo taa ka dhumac weeyna dhalinyaradu waa xoog oo qaran ku dhaatay dhalinyaradu waa dhaayihii iyo dhuuxa aadmiga dhaliyahay dhamaanta xilbaa dheega ku suray dhaliyahay halaag baa dhacay iyo dhamac rasaaseed dhaliyahay dalkeenii dhamaa maanta waa dhacay dhaliyahay dhibaatay qabaan dhumuc dadkeenii dhiilada sokeeyaha rag baa daabada u tumay dhagaraha qabiilkii warmaha la isku dhacay shawligeedba dheef lagama cunin dhudin colaadeed dhalinteen waxay dhowraysaa dhalinta weeyaan idinkuna hadaa dhoohantiin waa dhabcaalnime dib kale ka daran baa jirta oo taa ka dhumac weeyna siyaasiyiintu waa niman dhadiga dhugiya arlaaye waa niman gumaystuhu dhalay oo dhaqan wadaagaana giddigoodba waa wada dhufaan gaal ku dhaansade oo dhir waa ay cunayoon mid kale uga dhawaada ninka dhaatada u qaadayo dhoohanaata ninka laba xisbi kala dooray ama laba siyaasi la kala socda waa laba waraabe waa waraabo madow iyo mid cad marka adigu hadda tiraahdo waraabaha madow iyo kacad mi aniga ka madowyaan oo cuno ka cadihay cuno nin laba waraabo kala dooranaya wax siyaasado la kala doortaan macnaha ma jiraan siyaasiyiintu waa niman dhadiga dhugiya arlaaye waa niman gumaystuhu dhalo dhaqan wadaagaana giddigoodba waa wada dhufaan gaal ku dhaansade waa dhir waa ay cunayoon mid kale uga dhawaadaay ninka dhaansada u qaadayo dhoohana tahay dib kale ka daran baa jirta oo taa ka dhumac weeyna nimankii hawaash naga dhacay iyo dheenta labi hawle dhoobada waariye raggii faafo naga dheelmay dhagax buuri la dhooba madow tan iyo dheekaas ceelkii dhanaane iyo raggii dheenta naga xoogay lafta dhaqaya boor iyo wadheer iyo wala dhinaciisa dhagax madow ilaa dheeto iyo waraha dhaadheerba keymaha dhamaajada leh iyo dheega xamaraadba isku dhoon dharkaymaale iyo dhoolihii adari dhambal iyo ilaa diri dhabood yaa ugu dhimanaysa dhulka iyaga raggii naga dhacay ee dhaqasho noo diiday maantana waxay dhaan fureen kobaan la dhaaday maantana waxay dhaan fureen waa tan leynankayga Hargeysa kuma dhirbaaxaysid maantana waxay dhaan fureen kobaan la dhaadayne dhugmanimaan lahayn bay la tahay dheelaliya beene sahankoodu uu dheer yihiin baaqa loo dhigay dhuganaha duruusta iyo haddaad dhugato taariikhda Falastiin sidii loo dhacay dhalan wadaagna Falastiin sidii loo dhacay ayaa dhalan wada Falastiin waa lagu soo guuro Falastiin sidii loo dhacay dhalan wadaagnaay aniguna odhaahdaan dhigaa dhaxalgal weeyaan dhagxumadu intay ka fogtaa la iska dhowraaye haddaan hadada wada dhiiran iyo geesiyo u dhaaran haddiinaanu dhiman diinta iyo dhaadashada ciid dhuuxiyo haddiinaanu shubi dhiiga iyo heenka maba dheera goortay dalkaba inaga dheelmaane dhaqsadoo ka kaca lama fadhiyo dhalon dhal ceebeed kaas ruuxu waxa gabaygii
dhayga nageeye abaan daayar baata